inay maanta ay kala hor yimaadaan ciidamada qaranka Somaliland iska caabin intay socotay iska caabintaasna milishaadka ay ka dhinteen 2 halka 4 kalena ay ka dhaawacmeen xabsiga magaalada Hargeysa lagu hayo inaanay haysan daryeel iyo xanaano u dhiganta ama u dhow mid ay haystaan kuwa ku xiran magaalada Laascaanood sida tan kana waa hadlaya kii degnaa Laascaanood maahan kii degnaa Hargeysana maahan ujeedkiisu ku leeyahay hadalkan isaan soo sheegaba wuxuu ku doonayaa reerkan deegaanku waa soo albaaray inuu sheedaamiyo Somaliland waxaase ka hoos baxday dhul bahante iyo beeshiisu leeyahay sheedaame markii laga hadla xaqiiqda inay yihiin wiil abtigiisa waxaana aysan u kala qaybsadeen maxaabiista waa laga warhayaa dadka magaalada jooga ee beesha ka soo jeedaana way ka warhayaan dee wax dhibaato ah oo weyn oo taagan dee ma jiraan isaguna uun hadalkiisu waa hadal dadka iska horkeenaye maaha hadal u danaynaya dadka wanaagooda iyo muxuu ahaa iyo xalinta khilaafaadka soo kala dhex malay dadka Switzerland gaar ahaan magaalada Davos waxa ka socda shir madaxeedka dhaqaalaha waxaana ku sugan shirkaasi inta badan hogaamiyaasha caalamka waxaana u muuqata madaxweynaha Somaliland inuu doonayo hogaamiyaashaas in la yeesho kulamo halkaasna uu ku iibgeeyo fursadaha maalgashi ka banaan Somaliland iyo arinta aqoonsiga waa hadda Somaliland albaabkeedu u furan tahay bismillaah saaxiib yeel ku soo dhawaada madal furan aniguna waa Liibaan Maxamed Aadan aan ku bilaabay mowduucan caaway 1 bishan January Soomaaliya waxay la wareegtay hogaanka golaha ammaanka qaramada midoobay hogaamintooda wuxuu ku og yahay 10 cisho bishan ka hartay xubno ka tirsan maamulka Xasan iyo gulwadayaasha Xasan Sheekh qoraantii bishan waxay lahaayeen intaan ku fadhino kursigaasi qaramada midoobay waxaan kula dagaalamayna Somaliland aqliyan kaas ahayn meesha kuma hayaan itaalkeedana ma lahan Xasan iyo Fiqi oo amnigooda ay dalaalin ka yihiin Ugandes Burundi Oromo Kukayo ayaa rabaa inay isku dheeriyaan madaxweyne Ciro oo amnigiisa iyo amniga dalkiisa cidna aan martigu ahayn sida haddaba ka muuqata shaashadani askarigan Afrikaanka ruuxan u fatashayo ama uu baarayo waa Cali Maxamed Geedi oo hore u soo noqday ra'iisul wasaaraha Soomaaliya goobtan lagu bahadilayo waa xamar sidan foosho xun lagu baarayo waana xamartii ka xisay jireen Soomaalida kale inuu ku oran jireen unuka iska leh ceebka weyn miyaa jirta intana aqoonta u lahayn Cali Maxamed Geedi waxay heeb hoose wadaagaan Xasan Sheekh ugu yaraan askarigan hadduu ahaan lahaa Soomaali in yar oo qila ayaa loo sameyn lahaa hadda si waa Afrikaan waliba Afrikaantii kuwii ugu liitay qoom alle ma duleey ilaa ay isduleeyaan matan bay ugu yareen Somaliland oo ku lahaayeen kaalayan xukuma ma ayaga haystaba wax lagu xukumo ama dadka ay ku xukumaan hadda waxa la yiraahdaa ogaadin xor maahan waxaase kun jeer ka liita qofka Soomaaliga ku nool xamar ninkaan magaalada uu sheegtay lahaanshaheeda sida tan loogu ceebeystay wuxuu ka mid ahaa xubnihii u raacay Xasan Sheekh Laascaanood haba u raaco waxa ku soo qaatay mowduuciga xalay warbixin dheer oo laga soo xigtay qoraalkeeda Dr. Baadiyow nuxurka warbixintaas waxa uu ahaa in la sheedaameeyo systemka Somaliland shacabka Somaliland laga sameeyo ama laga faafiyoba been abuuro iyo dacaayado intaan soo sheegay xalay ay ku jirtay warbixinta laga soo xigtay Baadiyow ninkan wuxuu la tagay Laascaanood bar ila dhageyso wuxuu ku hadlayo waxaan aad uga xumahay maxaabiista ka tirsan xabsiga magaalada Hargeysa lagu hayo inaanay haysan daryeel iyo xanaano u dhiganta ama u dhow mid ay haystaan kuwa ku xiran magaalada Laascaanood waxaan warbixin buuxda ka hayaa cadeymo iyo dokumentiyo waraaqana ka hayaa in waliba aan loola dhaqmin si wanaagsan sida tan kana waa hadlaya kii degnaa Laascaanood maahan kii degnaa Hargeysana maahan ujeedkiisu ku leeyahay hadalkan isaan soo sheegaba wuxuu ku doonayaa reerkan deegaanku waa soo albaaray inuu sheedaamiyo Somaliland waxaase ka hoos baxday dhul bahante iyo beeshiisu leeyahay sheedaame markii laga hadla xaqiiqda inay yihiin wiil abtigiisa waxaana aysan u kala qarsooneen maalmo ka hor ay ahayd markii mid ka mid ah garaadada Laascaanood Xasan Sheekh hortiisu ka sheegay Somaliland iyo beesha ay doonayaan in ay u sheedaamayaan in ay yihiin dadka Soomaaliyeed kuwa ugu gobsan anagu hadda tusaalahan waxa la yiraahdaa waalidtiin waa walaalaha reer Sheekh Saxaaq waxaan u ogolahay inay gob yihiin waxaan u ogolahay inaan derisnahay waxaan u ogolahay hadday Soomaaliya ka tagayaan hadday doonaan ka tageen in maxaabiista halka joogtana la ciqaabun buu u jeedaa oo Laascaanood joogta ee uma danaynayo wanaagii marka aad iyo aad buu khaldan yahay aad iyo aad buu khaldan yani waa hadal xamar kala yimi waana siyaasad xamar taala
oo muxuu ahaa aad iyo aad u khariban wey marka dee inuu waxaanu ka warhayn inuu saa uga hadlo anuu aad iyo aad baan uga soo horjeeda aadna waa u dhaliilaya la soo dhaafay ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Soomaaliya oo laascanood ka hadlay waxa uu sheegay in maxaabiista dhulbahante ee Hargeysa ku xidhan ay dayac badan ay ku sugan yihiin arrinta adiga sidaba kula muuqata wallaahi wuxuu ku hadlay dee wax aan jirin anu waxaan u arkaana dee nin iska hadlay maxaabiista waa laga warhayaa dadka magaalada jooga ee beesha ka soo jeedaana way ka warhayaan dee wax dhibaato ah oo weyn oo taagan dee ma jiraan isaguna uun hadalkiisu waa hadal uun dadka iska horkeenaye maaha hadal u danaynaya dadka wanaagooda iyo muxuu ahaa iyo xallinta khilaafaadka soo kala dhex malay dadka marka aad iyo aad buu ugu khaldamay hadalka aad iyo aad buu ugu khaldamay waxaanu ka warhayna dee wuu sheegay marka annagu waxaanu leenahay xildhibaanada waxaan leeyahay ku xidhan maxaabiista ku xidhan laascaanoodna waxaanu ka warhayno si fiican inay u daryeelaan kuwanna sidaas oo kale maxaabiis caadi oo xidhan dhibaato dheeraadana ma qabaan mas-uuliyiinta laascanood ka soo jeedaa tahay Hargeysa ugu sugan baa tahay hadalkaas adiga sidaba kula muuqda munaafaqadan iyo shaydaameyntan xasan sheekhi xertiisa kama wadaan kaliya bariga waxay kaloo ka wadaan galbeedka maanta ugu dambeysay deegaan magaciisa lagu sheegay Nabiraale oo aan ka fogeynba degmada Seela isku hormaad wuxuu ku dhexmaray ciidanka Somaliland iyo maleeshiyaad dhawaanahanba xasan iyo geela ay hubinayeen maleeshiyaadkaas oo laba qaybood qayb laga keenay Itoobiya gaar ahaan ismaamulka Soomaalida Itoobiya iyo qayb lagu soo xoojiyay oo ahba militariga Djibouti oo dareeska laga dhigay oo loo kiisiyay shacab si ay qayb uga noqdaan falalka amni darro ay doonayaan xasan iyo geelle inay ka abaabulaan deegaanadaas dhaca galbeedka Somaliland sida haddaba ka muuqata shaashadani war-saxaafadeedkani maanta ka soo baxay ciidanka qaranka Somaliland waxaa lagu sheegay ama waxaa lagu faahfaahiyay dagaalkani maanta ka dhacay gobolka Salal gaar ahaan soonaha degmada Seela ciidamadu waxay sheegeen ayagoo ku raajooga maleeshiyaad ama burcad maalin ka hor dil u geystay laba qofood oo shacab ah isla maleeshiyaadkii dilka geysatay inay maanta kala hor yimaadaan ciidamada qaranka Somaliland iska caabin intay socotay iska caabintaasna maleeshiyaadka ay ka dhinteen laba halka afar kalena ay ka dhaawacmeen sidoo kale ciidamadu waxay soo bandhigeen burcadaasi hubka ay wateen aan dib ugu noqday bilowgii mawduuca horaantii bishan January xasan sheekhi xertiisa waxay lahaayeen inta ku fadhina kursiga hogaaminta qaramada midoobay hogaamintaas waxaan kula dagaalami doonaa aqoonsiga Somaliland maantana taariikhdu waa 20 ilaa haddana maamulka xasan wax talaba maysan qaadin sababta ay weydiisay aan ku sheegay haddaba sababtaasi kursigan hogaaminta golaha ammaanka qaramada midoobay awood dheeraad oo fulina ma lahan kaliya waa maamuus saameyn wadan golahaasna waxay ku xiran tahay hadba wadankaasi awoodda uu leeyahay maantana xaalkeeda waa ka warqabnaa Soomaaliya midda kale dabiiqada sanadka hore Mareykanka golahaas dhexdiisa wuxuu ka dhex difaacay aqoonsiga Somaliland taasoo ka dhigan inay ku jirto Somaliland dalada amniga Mareykanka hadda maalmihii dhoweed xasan iyo fiqi ugu hanjabeen Somaliland inay weerari doonaan xoutiyiinta iyo Sacuudiga fariintoosa oo digniina xasan sheekh wuxuu ku timid Mareykanka waxaan loo sheegay inuu joojiyo hanjabaadaasi iyo taageerada xoutiyiinta qof taageera xoutiyiinta wuxuu la mid yahay qof taageeray kooxda al-shabaab iyo kooxaha la midka Mareykanka ay ugu diiwaan gashay yihiin argagixiso maalmahan ugu soo wajahan waxaa la filayaa xasan sheekh inuu safro New York isagoo ujeedkiisu uu yahay inuu sawiraan ku soo galo shirgudoonka golahaasi inta aysan ka dhaban wadankiisa waa xasan sheekh hogaaminta golaha ammaanka qaramada midoobay geesta kale tani markii la ictiraafay Somaliland xasan sheekh maamulkiisa waxay ka wadeen gudaha dalka Mareykanka galangal ayagoo kareystay loobistayaal Mareykan ah si ay u garaacaan xafiiska Trump ilaa haddana uma suurtagelin xalay ugu dambeysay Trump wuxuu ka hadla dulmaray Soomaaliya isagoo shaki geliyay wadan ahaanshaha Soomaaliya waxaan si gaar ah ugu mahad celinayaa dawladda Mareykanka Somalia is not even a country beerka ka ogsooni I mean we're taking people from Somalia and Somalia is a failed it's not a nation got no government got no police got no military got no nothing intaana soo afmeeray mawduucan caaway madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland 3 cisho ugu dambeysay ama 4 cisho ugu dambeysay waxa la laa meel uu jaan cirib dhigay qoliyada reer Soomaaliyeed ku jahwareysanaayeen ba safarkaasi ee madaxweynaha haddaba maanta madaxweyne Ciro barta uu ku leeyahay Facebook wuxuu ku baahiyay sawiraantan hadda idin muuqda Paris la sameeyay waxa la ogaaday sawiraantan goobta uu soo galay madaxweynuhu inay tahay wadanka Switzerland gaar ahaan magaalada Davos waxa ka socda shir madaxeedka dhaqaalaha waxaana ku sugan shirkaasi inta badan hogaamiyaasha caalamka waxaana u muuqata madaxweynaha Somaliland inuu doonayo hogaamiyaashaas in la yeesho kulamo
halkaasna uu ku iibgeeyo fursadaha maalgashi ka banaan Somaliland iyo arrinta aqoonsiga oo hadda Somaliland albaabkeedu u furantaba. midnaan ku xasuusiyay shirkan waxaa ku sugan Trump waana suurtagal inay kulmaan labada madaxweyne Mareykanka iyo Somaliland 48 saac ugu dambeeyay waxaa jira warar jawiga hoose ku socda oo sheegaya safarka madaxweynaha inuu daaran yahay dhamaystirka heshiisyo waaweyn oo dhexmari doona Israa'iil iyo Somaliland Trumpna uu ka ahaan doono goob jooge mowduucan caawana intaas ayaan ku soo afmeeray